waxaan ugu baranaa kadisyaal maantan wuxuu idin wadaa kadis aad u qurux badan waxaa sharaf ii ah inaan aniga idinla wadaago ila soo dhaweeya xaaskiisa labaad maryamo طبعا عبد الحليم على الكدس كيس هلاس كوميكو إلى سو دوايا حاس كيس سدحات سينابو ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد مايا عبد الحليم على العاوة أصيغة وش دنتاي إلى سو دوايا حاس كيس أفراد فض فاضمو ألف الصلاة وكذي سلياب لصح waxa u maleyn inuu qofna hor u sameeynin afar xaas hal habeen waxa rajayna buug rikoorada adduunka in lagu dari doono insha Allah iyo ogol inaa sheekada bilaaw idin kaga soo bilaawo xaaskii koowaad ee Munira maysan ogin inaa ka daba keenayo Maryamo laakiin way ogeyd Munira bis maysan ogin Zainab iyo Faadima labada qof ee sheekada dhan ogaawaa Faadima iyo DJ Captain Majid waa wiilkiina Captain Majid oo idin ku soo dhaweynaya Jil Media wix faahfaahin laga soo xiriirina 2 وانا حسنتين صح هويوينك إيجار على النقطة ما جرت مدو مالينيس إن قبرت هذا اللي قول سنايو باسم إذن كقرنين أنا قوح عبد الحليم وأنا خانة حلاشي حارانتا وأنا قوح مريم وحمانا ما في عنو سأوقتين شرعي جديد إسلام كوحي بنس أفر وأنا وح إذنك يدربين إنا فهنتان أنا قفنا وح وميري سنين قفنا مخيامين الله أيانا كمر قاتيا إنا دماتود وضجع لهاي متكستو أيكا كمد أهنا ميركيد أياسية إندي هيك أيانا سارتي maantana dhammaantood waa isku keenay si ay indhahooda ugu arkaan wax kasto haddii mid idin kamid aysan ka helin arrintan ha istaagaan ayada iyo taaskeeda iridana ha ka baxda ciideedana ha wadato soo uma jirin gabdhakeeda fadhi meeshaas waa iska cadda maxshoonis Cabdi Xaliimow xitaa rabbigaaga ma ka baqaysid may waa ka baqayaa waxaan filaa dhammaantiin inaan ognahay inuu furiinka ku batay magaalada maxaa sababay Captain Majid maxaa sababay ii sheeg waa wiilkiina Captain Majid oo idin ku soo dhaweynaya Jil Media wixii faahfaahinana la soo xiriirina 2 waxaan u maleynayaa inuu furiinka sababay walaalkii Cabdi Xaliimow ninka markii uu guursado muddo yar kadib inuu bilaabo inuu ku ciyaaro xaaskiisa oo qiyaameeyay ama xabadoo kale inuu ku guursado qudbasaro ayadoosan ogeyn xaaskii koowaad waa maasanta Captain Majid aan niraga ah gabar ma ku ciyaar man qiyaamine sirna ma ku guursaday maxay waxa Cabdi Xaliimow ana qana xalaashi xaranta idinka go'aanka iska leh Munira ma ogashaa mismay allahooga اوهو هدب وانت بلاودم يابا سوق ميك اب حقيقه صار العاك سو بعشو تيش كان قبصو دقسو اسبوكسي يسو علتيسكيغا موقشا اسمو اوغلد ايشك waxa u baahanaa inaan qoyskii la soo tashto حقي اولاد حاسكست ان لا تشتو qoyskeeda ku soo dhawaada aad qoyskeena la tashto socda dhaqsada he 2 daqiiqo haysatiin ogaada tartiib socda xaaskay janjarta qalbigii goonusa tartiib yalla dhaqsada he gabadheeda bal isdajin in xunaa gacanta ku galay Captain Majid muusikada la talenta noogu tur adoraal iyo wax yar asxaabi waa ilowdiina malena muuqaalka laag saara Jil Media follow soo dhaha waqtigu waa u dhamaaday Munira ma ogashaa mismay inta ogolaanin ka hor waxaa rabaa inaan ogaado ani sida u noolaana afarteena si cadaalad noogu sameynay waa su'aal wanaagsan aan bal ka bilaawno guriga waa kana guriga aadagi rabno guriga wax uu ka kooban yahay 4 dabaq dabaqa koowaad waa Munira ka labaad Maryamo ka saddexaadna Zainab kan afraad waxa iska leh Faadumo mid kasto ay ka mid ahna waxa uu galiyay internet waana internetka shirkadda Hormuud kaasoo ahayna fiber 4G ah waxa la dhigi doonaa 5G laakiin wallahi haddii mid idin ka mid ah ay bilowdo mid kale inay shirqoosho ama xamato dhammaantiin oo idin wada furaa maxay anigu waxa Cabdi Xaliimow aqaan xalaashi xaranta wanaag wax ma dhibo xumaanna ma fiicno gabdhahaas ayaa keedka fadhiyo
waa ka soo dhamaanay guriga ilaahay ma sababay guriga mustaqbalka dab ayaa ka kici karo qaasatan dabqa kuwaad ee Muniira ilaahay shar ka badbaadiyo xabiibti qaabka loo badbaadinayo waa sidaas soo socoto kabta maajid u sharax marxaba waa saaxiibkiina kabta maajid qofkii rabo inuu iga farxiyo muuqaalkan yuulaaka iloobiyaa haddii lacala dab uu ka kaco guriga ilaahay ma sababee qaabka loo badbaadinayo waa sidan soo socoto aniga marka hore Faadumo ayaa ka soo raraa dabaqa afraad si dhaqso leh ayaan u soo maraynaa Zeynab oo joogto dabaq saddexaad kadibna Maryama ayaa ka soo wadaynaa dabaqa labaad intaas kadibna dhammaantiin oo soo deganaa si Muniira ugu badbaadina dabaqa koowaad si nabad ayaa ku wada baxeynaa laakiin wallahi haddii mid idin kamid ah ay wax gaaraan ama ay gubato dhammaantiin waa idin wada furaa anigu waxaad dhaxlimo aan aqaan xalaash xaraanta wanaag wax ma dhiw xumaan ma fiicno gabdhaas ayaa keedka fadhiyo